waxaan soo gabagabaysanayna kulankeena maanta meeshaan isugu nimid ee ahaa in laga hadlo waxqabadka agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir waxaan u mahadcelinayaa agaasimayaasha iyo madaxqaybeedyada agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir soo bandhigay waxqabadka agaasinka hadduu yahay mid online ah iyo hadduu yahay hard copy iyo hadduu yahay presentation intaba marka waxaan leeyahay maasantii dhamaantiin agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir waxa ka go'an inuu hormariyo waxbarashada gobolka Banaadir harihimin u taagan yihiin dhalinyaradan aragteen quruxda badan leh la taliyaal iyo agaasimayaal iyo madaxqaybeedyo inay hormariyaan waxbarashada gobolka Banaadir agaasinka wuxuu asaasan yahay 2 sano wax yar dhiman 2 sano uu sameeysan yahay wuxuu waqti badan ku bixiyay inuu waxbarashadii tayeeyo waxa ogtihiin markii gobolka Banaadir waxbarashada lagu wareejinayay ardada ugu badan ee dhacda gobolka Banaadir ahayd sanadkii gobolka Banaadir waxbarashada lagu wareejinay 2019 Soomaaliya imtixaanka waxa dhacday 8550 arday markaas agaasinku bilow ahaa wasaaradda waxbarashada ayaa magaalada waxbarashadeeda mas'uuliyadda haysay iyo bahda kale markii anaga aan la wareegnay san dugsiyeedkaas aan shaqeynay 2021 aan kormeero sameynay fasalka 8aad gaar aan kormeer ugu sameynay fasalka 12aad gaar aan kormeer ugu sameynay waxaan la xisaabtanay maamulayaashii iskuulaadkii waxaan wada shaqeyn toos ah la yeelanay bahda waxbarashada gaar ahaan iskuulaadka maamulayaasha iskuulaadka iskuul kasta waan tagnay ardada imtixaanka galeysana waa soo aragnay waxaan kala daba galnay inuu dhamaado manhajka waxbarashada yaani buugta ardada loo dhigahay inay dhamaadaan ayadana waqti baan gelinay arimahaas oo kormeerka aan ku sameynay asoo waliba xafiiskii uu curdan yahay maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxday imtixaankii 2021 markii la qaaday boqolkiiba 50 ayaa dhacday markii loo fiiriyay ardada hore meesha ardada gobolka Banaadir ay 7900 iyo xogaa ay dhaceen 2020 markii anaga san dugsiyeedkaas aan shaqeynay ee kormeeradaas aan sameynay ee waxbarashada aan tayeynay waxaa dhacday 4000 iyo wax yar san dugsiyeedka 2021 4000 iyo wax yar dhacday taasoo u dhiganta markii loo fiiriyo san dugsiyeedkii hore ee anaga marka waxbarashada ku wareejinayay ahayd ee markaas maamulka aan si rasmi ah gacanta noogu jirin boqolkiiba 50 ahayd ayaa markii kan loo fiiriyo tan labaad oo la hormariyay waxa ahayd markii la ku wareejiyay waxbarashada gobolka Banaadir xogta ardada gobolka Banaadir ee saaran imiska online-ka lagu aruuriyo xogta lagu aruuriyo boqolkiiba 12 ayaa saarneed ardada gobolka Banaadir ardadaas aan sheegayn waxa weeye fasalka koobaad ilaa fasalka 12aad maantay oo aan joogno waxaa maraynaa boqolkiiba 41 ayaa xogtii saarna si aan u dhameystirna boqolkiiba 100 u gaarsiino fasalka koobaad ilaa fasalka 12aad aan u gaarsiino hadda markii sanad dugsiyeedka aan bilownay waxbarashadii kormeer aan sameynay iskuul kastaan tagnay waxaan soo fiirinay tiradii ardada ee sanad dugsiyeedkii hore ee waxbarashada u xirantay fasal kasta iskuulaadkii ku soo laabtay mise kuma soo laaban maxaa arday aan xogta imiska ku xareysneen ee iskuulkana joogta aana ku jirin xogta online-ka ah taasoo haddii aan ardadaas la xareen mar kastaba ay ka dhalato mushkilad ah markii imtixaanaadka la gaaro gabagabadooda ayaa waxa lagu leeyahay intaas arday ayaa imtixaankii 8 kana loo diiday imtixaankii fasalka 12aad ee shahaadiga ahna loo diiday si ardada arintaas u dhicin waxaan soo hubinay fasal kasta ee 12 fasal imisa arday banaanka joogta waxaa noo soo baxday tiro ahaan qiyaastii 35000 ilaa 40000 oo arday inaysan ku jirin xogta imiska markaan arintaas soo xaqiijinay waxaan see u hubinaa markii see iskuul kasta xogtu uu sheegay inuu u saarneen imiska هذا أيضا ترى وايس أهو بنا
isniintii hadda la soo dhaafay maanta waxaan joognaa talaada soo maahan isniintii shalay ahayd waxaan bilownay kormeer aan ku samaynayno dhammaan iskuulaadka ku yaala gobolka banaadir 636 iskuul ayaan kormeer u aadnay dhammaan degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaan ee degmada sugaysa Garisbaalley iyo Daarusalaam iyo Gubadley 72 shaqo ka mid ah howlwadeenada agaasinka ayaa u dirnay loo tababaray qof kasta oo ka mid ah muxuu ahaa dadkaas loo diray kormeerka howlwadeenada loo diray kormeerka iskuulkiiba 2 qof aa tagaysa waxay wataan iskuulka ay tagayaan fasalka koobaad fasalka 8aadka iyo form 3ga iyo form 4ka xogtoodii oo daabacan form 1ka iyo fasalka form 2 waxa laga yaabaa in isweydiiyay asay maxaa kormeer lagu sameyn waayay form 1ka iyo form 2ga ardada joogta imtixaanka anaga ka qaadnay waa 2 sano aan soo dhaafnay kii hadda dhamaaday iyo kii ka horeeyay marka ardayga labaas fasal fadhiya ee aan muxuu ahaa imiskeena ku jirin waa inuu ku yimaadaa bedel waa inuu ka yimid gobol ama dibadda uu ka yimid saas uu ku fariistaa laakiin arday banaanka iskaga yimid ma socon karto fasalada koobaadka ilaa afraadka ayaga lama xiro sanduuqsiyeedka si loo furo waxa la xiraa markuu sanduuqsiyeedku dhamaanayo maadaama ardayda meeshaas dhaqaaqooda u badan yahay fasalka shanaad su'aalaha deertaan intaan shirkan ku jirnay dadka qaar kood ay weydiiyeen marka inaan hadda ka jawaabaan rabaa fasalka shanaad lixaad iyo toddobaad ayaga iskuulaadka waxaan u dirnay Excel shax aan leenahay shaxdan soo buuxi ku soo shub ardada banaanka ka taala arday kasta oo banaanka ka yaala xogtan ku soo shub in badan ka mid ah ku soo shubeen ilaa hadda 10,000 oo arday ku dhawaada hadda naloo soo gudbiyay inta kalena way socotaa iskuul kasta markuu ardadii Excelka noo soo diro oo aan hubino inay muxuu ahaa dhameystiran yihiin waxaan u furaynaa userkiisa wuxuuna soo gashanayaa xogtii ardada ee Excelkaas uu nagu soo diray arday ka dheeriya hadduu ku soo darsado waa lagu xisaabtamaya marka waxaan rabaa haddii dadka qaar kood waalid yihiin oo meeshan qofka hadda su'aasha igu weydiiyo oo maqlaayo inuu saas u fahmo يعني فصلنا أساساً كحلنا فصل كسيدات أو شهادة فهم طريقة أو شهادة اللي وصلنا سوا سعداء يفهم فرق وهذا الشهادة إحنا سكولات كي أشارة تجني تضم علينا يسوعنا يسا أو شالي قبل لعبتي سكول كستوى على صوت ترينا هي عرضة شوكته ما هي إن معمولها الإسكوي الدينية وحلاقي محمد علي عبدي مجوجا سكولك أو فصل على جلها هي قف على يرنا هي قف على صوت تابنا هي مركي لسوا يريو ولا صاحب بيحكتوا هذا ardayga banaanka ka jooga aan imiska ku jirin ee dokumentiga aan la yeerinayay aan ku jirin waa la soo qorayaa markii bacdina hubina la marsiinayaa hubinta markii dhamaatana waxa loo furayaa iskuulka userkiisa loo furayaa waxa leeyahay 10 arday ee fasalka form 4ka ama form 3ga ama 8aadka banaanka ka joogta ku soo xaree arintaas markay dhamaato marka shanaad iyo lixaad iyo toddobaadna xogtoodii iskuulaadka hadda waa loo furay waa loo bilaabay furitaankii qaarna weli looma furin waxa lagu furi waayay xogtii laga rabay soo gudbin kuwa hadda loo furayna shaqada way socotaa kuwa aan loo furin xogtii markay soo gudbiyaan dugsiga form 3 form 8aadka iyo form 3ga form 4kan ayaga loo furo ay soo gudbiyaan waxaan rajaynaynaa bisha 12aad ee December hadda nagu soo aadan 2021 ku dhamaanayso waxaan u soconaa waxa waaye in la waayo arday laga soo bilaabo fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad ee iskuul dhigta ee aan saarnayn imiska taasoo hadhowtina siinaysa 100% ardada noo joogta inay yihiin inay xogtaas wada saaran yihiin imiska wada saaran yihiin online ka saaran yihiin taasoo naga badbaadinaysa in hadhowta ardada imtixaankii ay ka baaqdaan su'aalaha labaad ee isweydiiyay waxa kamid ah iskuulaadka gobolka banaadir ku yaala in badan oo kamid ah ardada maxay banaanka uga joogaan waxaa la isku dhijiyaa fasalo markii la joogo dugsiga hoose dhexe koobaad ilaa 8aad ilaa 7aad wax loo yaqaano af Soomaaliga ay u dhahaan bahda waxbarashada u yaqaanaan kooraska haddana ay wasaaradda waxbarashada manhajka ay soo saartay iyo siyaasadda iyo framework qaab dhismeedka u sameysay waxaa loo yaqaanaa waxbarashada dadban ama ABE afka qalaad waxbarashada fasalka koobaad ilaa fasalka 7aad ee gobolka banaadir waa ABE taasoo macnaheedu tahay iskuul kasta ee ku yaala gobolka banaadir hal iyo laba ma ahane 636 iskuul waxay sameeyaan
fasalka waxay isku dhijiyaan laba fasal مثلا waxay sameynayaan saddexaad iyo afraad wuxuu ku leeyahay ardayga waxaan rabaa san dugsiyada markuu dhamaanayo inuu afraad ii dhameeyo saddexaad iyo afraad isu kaysii shanaad iyo lixaadna isu kaydar lixaad iyo toddobaadna isu kaydar ayagoo marka ka cabsi qaba in imiska laga xiro muxuu ahaa maamulayaasha iskuulaadka ayay ardadii bannaanka ku hayaan marka waxaan u sheegaynaa maamulayaasha iskuulaadka ilaa haddeertaan maamulka gobolka banaadir iyo agaasinkiisa waxbarashada ee waxbarashada gobolka banaadir mas-uulka ka ah ma jirto meel uu uga dhawaaqay ama dukumiinti uu soo saaray uu leeyahay waxaan joojinay course ama waxa loo yaqaan waxbarashada dadban laakiin insha allah san dugsiyeedka hadda noo socda waxaan samayn doonaa muxuu ahaa meel la iskugu yimaado oo looga doodo oo manhajka wasaaradda waxbarashada ay soo saartay ABE-ga meelo looga doodo si loo fulin lahaa san dugsiyeedka soo socda inta san dugsiyeedka soo socda hawsha laga fulinayana sida hadda wax ku wadaynaa iskuul kasta kooraskiisa waa loo ogol yahay laakiin adoo kooras ugu ogol yahay waa in ardaygaada uu imiska ku jiraa hadduusan imiska ku jirin macnaheedu waxa ardaygaas ma xisaabsano waay marka saddexaad markuu ardayga ku dhameeyo agaasinka qaybta iskala shaqaas uu qofka la soo wadaagayaa wuxuu leeyahay hadda waxaa noo soo socota imtixaankii nisacaamka bisha 12aad hadda soo socota waxaa la qaadayaa imtixaankii sanadka kala barkiisii iskuulaadka waxaa la furay Agoosto imtixaankii koowaad ee sanadka kala barkiisa wuxuu bilaabanayaa December markuu imtixaanka bilaabanayo iskuulaadka kooraska dhigo dhan waxay arday kasta uu ka baxayaa fasal ayuu dhameynayaa مثلا hadduu ardaygan shanaad iyo lixaad isku jirta uu ahaa wuxuu dhameynayaa shanaad markii imtixaanka uu galo san dugsiyeedka qaybtiisii labaad la furaayo January wuxuu ardaygu bilaabayaa fasalka lixaad iskuulka wuxuu la soo xiriirayaa maamulka xafiiska agaasinka ayuu la soo xiriirayaa qaybta iskale qaybta adeegyada waxbarashada gaar ahaan qaybta dugsiyada wuxuu sheegayaa inuu ay ardadii u dhameeyeen fasalkaas uuna rabo inuu lixaad lagu wareejiyo waa loo wareejinayaa inta nidaamka dambe ee laga hagaajinayo arrimahaas maxaa loo sameeyaa markii waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin in waxbarashada la tayeeyo ardayga in la daba joogo bedelkiisa laga warqabo iskuul markuu ka tagay iskuul kala tagaayo manhajkiisa in laga warqabo inuu ardaygan ku jiro xogta online-ka ahayd imiska inuu ku jiro in fasalada shahaadiga si gaar ah loo muxuu ahaa waardiyeeyo dhammaan waxay tayeynaysaa waxbarashada fasalada shahaadiga ah insha allah waxaan arki doonaa san dugsiyeedka hadda markuu noo dhammaanayo imtixaanka sideedaadka iyo form 4ka aan galno inay wax iska bedeli doonaan sidii hore ee sanadka hadda la soo dhaafay insha allah waana tamida ku dadaalna dhammaantiin waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh